isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mukhtar Jaamac Nuur ayaa magacaabay guddi caafimaad oo ka shaqeyn doonta xuduudaha laga soo galo gobolka Awdal kaasi oo maanta kulankii ugu horeeyay la qaatay guddidaasi. Kulankan oo ujeedadiisu ahayd sidii looga hortagi lahaa cudurka coronavirus oo hadda aan jirin cabsi fara badan oo looga qabo gobolka balse la wada dadaalo lagaga hortagayo. Dr. Mukhtar Jaamac Nuur ayaa sheegay inay dhakhaatiiru diri doonaan xuduudaha Gorayacawl isagoo sidoo kalena ugu baaqay hay'adaha wada shaqeynta wasaaradda caafimaadka inay ka qayb qaataan ka hortagani. Waxa maanta ii sharaf halkan in aan ku galnay kulankii ugu horeysay ee guddidii loo asteeyay cudurka la yiraahdo COVID-19. Xubnaha oo ka tirsan 7 xubnood oo hogaaminaya isku duwuhu ku xigeenna uu yahay agaasimaha guud ee isbitaalka guud ee Boorame iyo xubno kale oo ka mid yihiin fayadhowrka waxay xoghaynta iyo madaxa wacyigelinta iyo BHC-ga oo ah ninka noo qaabilsan xanaanadka ayaa waxaan maanta kulankan waxaan ku qaadanay maanta xafiiska isku duwaha gobolka qodobada aan ka soo saarnay cudurkan COVID-19 anagoo raacana wacyigelintii iyo talasiintii wasaaradda horumarinta caafimaadka hogaaminaya waxa weeyaan wasiir Cumar ayaa waxaan xoojin doonaa wacyigelintii daba joogi jirtay cudurrada ay ka mid yihiin polio iyo measles oo aan maanta kusoo dari doono cudurka la yiraahdo COVID-19. haddaba maadaama ay wasaaraddu ballaaran tahay oo shaqaale fara badan ay leedahay oo u qaabilsan wacyigelinta waxaanu isticmaali doonaa shaqaalaha noogu baahsan xanaanooyin kala duwan ee uu gobolku leeyahay oo IYCF iyo qolooyinka bixiya caafimaadka wacyigelintiisa. waxa kale oo halkan islaaf karanay inaan xoojino meelaha laga soo galo xuduudaha gobolkan gaar ahaan waxa ay Lawiyacdo iyo Gorayacawl. waxa kale oo halkan Jaanis aan ka faa'iideysan doonaa inay nagala qayb galaan qolooyinka naga caawiya caafimaadka hay'adaha oo ay ugu horeeyaan HPA oo bariyahanba ku mashquulsanay inay diyaariso waxyaalaha wacyigelinta ah inaan uga faa'iideysno wacyigelinteeda 5 qodob ee ka soo baxay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee lagula tacaalayay cudurka COVID-19. waxa kale oo saaka shaqaale u astaynay inaan geyno Gorayacawl shaqaalahaas oo aan ka keeni doono xanaanooyinka jaaraha horta iyo dhanka shaqaalahaas oo markii hore aan tababar siinay ayaa waxaan si degdeg ah uga hawlgelin doonaa toddobaadkan aan ku jirnaa dabayaaqadiisa xuduudda Gorayacawl. waxa kale oo isla afkaranay guddidan inaan wacyigelinta ka bixino masaajidada iskuulada iyo dhammaan meelaha dadka isugu iman karaan ee looga baahan yahay in wacyigelinta la bixiyo. wacyigelinta kullee waxa ugu muhiimsan oo aan bixin doonaa 5 qodob ee wasaaradda ka soo baxay. waxa kale oo ku dari lahaa inaan la yeelan doono Khamiista 10:00 hay'adaha nagala shaqeeya caafimaadka ee gobolka oo ay kullee hogaaminayaan HPA iyo Save the Children International. waxa kale oo iyadana nasiib wanaaga bishan dabayaaqadeeda maadaama aan galno talaalkii laga bixinayay dabaysha iyo jadeecada oo kulley talaal xoog weyn ah inaan ka faa'iideysan doono qaybtiisa wacyigelinta si aan dhammaan gobolka shaqaalaha iyo dadka caafimaadka iyo dadweynaha dhammaan baan u isticmaalno inaan ka wacyigelino cudurkan COVID-19. ugu dambeyntii waxaan dadweynaha u sheegayaa gobolka inaanay jirin cabsi fara badan oo imika la qabo laakiin haddana in taxadirku wax muhiim ah u yahay inagoo dad muslim ah laynagama aqbalayo inaan idhaahno macnaha waxa aan ka jaahil baan ka nahay waa inaan is ogeysinaa wixii jira cudurkaas wixii laga yiri dabeedna waxa weeye inta itaalkeena ah yani insha Allah waxa weeyaan qaban doonaa. Waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.